waxaynu joognaa eelaboorka Kaabuul. marnaba kuma soo dhicin maskaxdayda iyo tan cadowgaba inaan sidan oo kale u soo laaban doono. markuu bilowday jihaadkii aan ku qaadnay Mareykanka iyo NATO, dadku waxay yiraahdeen kuwani miyay waalan yihiin, buuraha iyo qoryo la saaran yihiin. Mareykankuna wuxuu arki karaa cirbada dhulku taalla. sida ay arrinkan ku dhacday. Taliban waa ayo. maxaad ula jeedaa Taliban waayo? bishii Agoosto 2021 waxaa dumay guryihii carrada ahaa. kuwan waa daa'ifad isku dayay inay raacaan kuwii ay u shaqaynayeen kadib markii la isaga tegay iyaga iyo masiirkooda. وتركها لمصيرها المحتوم. waxaan xasuusanaa 2021 xilliga ay diyaaraddii Mareykanku ay ka kacaysay iyada iyo dadkii Afgaanka ahaa oo iska laalaadinaya. ma xasuusataan xilligaas eelaboorka Kaabuul? kulligeen waan xasuusanaa wixii dhacay 2021 iyo wixii ka dhacay eelaboorkan. Time to bring our people back home. Fighters have flooded the They're capital. American-made weapons in the hands of Taliban fighters. kuwan waa Mareykanka iyo xulafadiisa oo yaacaya si ay alaabtooda u aruursadaan una degdegaya inay baxsadaan. waana xilligii ay Taliban weerar ku qaaday kadib 20 sano oo ay Afghanistan gumeysi ku hayeen. ra'iisul wasaarihii xukuumadda Afghanistan, baarlamaankii iyo 3,000 oo ciidan ah kuwaas oo isugu jira boolis iyo military. dhammaantood waxay ahaayeen kuwo maqaar saar ah. way qarsoomeen iyagoo ku burburay maalin barkeed. haddaba qisada Afghanistan maxay ka dhigan tahay? taasi waxay ahayd farxaddaadi weyn. waan xasuustaa habeenka waxaan ku sugnaa Kaabuul, waana goortii askarigii iyo diyaaraddii ugu dambeeyey ay ka baxeen caasimadda Afghanistan ee Kaabuul. farxaddii aan dareemay waxaa laga yaabaa inaan dareemin noloshayda oo dhan inta ka dhiman. السلام عليكم. وصلنا افغانستان من جديد. halkan ayaan ku sugannahay mar kale iyo Afghanistan. markaad soo gasho eelaboorka, calaamadaas cad ayaad ku arkaysaa meel walba. waa kan Ibraahim. waan ku salaamay. soo dhowow mar labaad. 2 sano ka hor ayaan halkan imaanay. haddana waan ku sugannahay, waana soo laabanay mar kale. wax walba way isbedeleen. haa, wax walba way isbedeleen. xitaa dowladdii way isbedeshay. Kaabuul ayaan soo gaarnay. waa dareen gooni ah. waxaan dareemayaa xasilooni iyo ammaan. markii hore aan imaanayay halkan waa baqayay. كنت خايف. haddana hadda jawigu waa uu degan yahay. waxaan dareemayaa inaan dadkaygii ku dhex joogo. bixitaankii ciidanka Mareykanka ee Kaabuul waxay ugu magac dareen furashadii Kaabuul. markii hore waxay ku noolaayeen buuraha. hadda maxaad dareemaysaa? maxaa yeelay markii hore buuraha ayaad ku sugneed, haddana magaalada ayaad ku sugan tahay. xukunkii gacanta ayaad ku dhigteen, waadna safri kartaa. hadda waxaan garanay noloshu waxa ay tahay, balse intaanan furan Kaabuul noloshu waxba maynan ka garanaynin. 2 sano oo hadda ka dhiman waxaan awoodnaa inaan Afghanistan sida aan rabno ugu dhex soconno, aan aadno dhammaan goboladeeda. waan awoodnaa wax walbo kadib furashadii Kaabuul. waxay ahayd furasho weyn. haa, furasho weyn. Taliban ayaa xukunkii ku soo laabatay. dalkiina isbeddel ayay ku sameeyeen. isbeddelkana wuu socon doonaa maxaa yeelay musuqmaasuq aad u weyn ayaa dhulka ku baahsan. halkan Kaabuul dadku maysan awoodin salaada maqrib kadib inay guryahooda ka soo baxaan. ma markii hore. haa, si aan xorriyad u helno 20 sano ayaan dagaalamaynay. 20 sano soo maaha. haa, 20 sano. waa 20 sano oo xorriyadu dirir ah. inaan dhisno xukuumad islaami ah. bal suurayso, dalkan wax ammaana kama jirin markii hore. markii hore aan imaanayay aad ayaan u baqayay. tan waa safaaraddii Mareykanka oo cidlo ah. eeg, waa cidlo. iyaga keliya maaha, NATO xitaa saldhig ayaa ugu yaalay. eeg, waa safaaraddii Mareykanka oo lagu kala tegey. darbiyada waxaa ku qoran safaaraddii Mareykanka. shacabka Afgaan way ka adkaadeen Mareykanka, way guuldareysteen, way jabeen Mareykanku. buuro badan ayaa ku yaala meeshan. Afghanistan dhanna waa wada buuro. lama jabin karo dowladdan. كلها حوالين كل أفغانستان جبال. هاي الدولة ما بتنهزم. طالبان ما بتنهزم. eeg khariiradda. ma geli karnaa. may hadda lama geli karo.
safaaradda Maraykanka ee laga guuray ayaa muuqaalkan ciwaan uga dhigi doona. aniga ka shakhsi ahaan marar badan ayaan galay gudaha ayaan kubad ku ciyaari jirnay. Ma safaaradda Maraykanka ayaad kubad ku ciyaartay? haa salaada casar kadib ilaa hadda mujaahidiintu kubad ayay ku ciyaaraan dhexdeeda. Walaadad wanaagsan ayaad tihiin, bal aynu eegno mustaqbalka imaaradda Islaamiga ah. mustaqbalkeena wuu ifayaa. Wuxuu leeyahay mustaqbalkeenu waa mid ifaya. Waxay haystaan saliidda cayriinka ah. Dalalka qaarna iskaashi ayay kula jiraan sida Shiinaha. shiinaha kaliya ma ahan, waxaan doonaynaa inaan cilaaqad xooggan la samayno dowladaha oo dhan. derbiyadan waa kuwa dhaadheer, waxay sidan u sameeyeen cabsida ay ka qabaan qaraxyada ismidaaminta ah. Cabsi ay ka qabaan Taliban darteed ayay sidan darbiyada u dhiseen. Halkan maxay u joogaan? waa imaarad islaamiya. Calankii xitaa waa la bedelay. haa waxaa loo bedelay mid cad, waa calan ay ku qoran tahay kelmadda laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah. Hadda waxay haystaan fursad ay isku horumarin karaan. Eeg halkan waa waraaqadii ogolaanshiyaha daroonta. Tani waa dowlad rasmi ah. Waxaad helaysaa ogolaanshiyo aad ku dalbato. Dowladaha qaar kama jirto arrinkan. Halkan ayaan sheekada ka bilaabi doonaa. Waxaan ka bilaabaynaa boqortooyadii Afghanistan ilaa laga soo gaaro jamhuuriyaddii Afghanistan iyo loolankii dhex maray xisbiyadii siyaasadeed. July 17th, 1973. Le royaume d'Afghanistan est devenu république. Waxaa xigay soo gelitaankii Sofiyeetka iyo gumaysigii Afghanistan. Troops have been arriving in increasing numbers since early December. This invasion is an extremely serious threat to peace. Kadib waxaa xigay iska caabintii mujaahidiinta ee ka dhanka ahaa gumaystaha Sofiyeetka iyo xukuumaddii shuuciga ahayd ee Afghanistan. You'll go back to it one day and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right. God is on your side. Waxaa la gaaray jabkii iyo dabagurashadii Sofiyeetka ee Afghanistan iyo xukuumaddii shuuciga ahayd ee Afghanistan. And today formally agreed to pull its troops out of Afghanistan. When we support the Afghan people, we become caught up in and ennobled by their struggle for freedom. Kadib waxaa bilowday khilaaf kaasoo ka dhex dhacay gudaha mujaahidiinta sababo la xiriira isku qabsiga maamulka. Waxaa xigay asaasitaankii Taliban oo ahaayeen arday baranaysa culuumta sharciga ah kuwaasoo ka yimid Pakistan ahna qabiilka Pashtun. Sidaas ayayna ku bilaabatay Taliban iyo xukunkeedii Kaabul ilaa laga gaaray dhacdadii 9 September ee 2011. The United States of America makes the following demands on the Taliban. Waxaa la gudagalay gumaysigii Maraykanka ee Afghanistan ee dhicitaankii Taliban ee guuritaankii ay Taliban u guurtay buuraha. Halkaas ayuu ka bilowday jihaadkii ka dhanka ahaa Maraykanka iyo xulfadiisii iyo xukuumaddii Afghanistan ee maqaarsaarka u ahayd taasoo ka caawinaysay Maraykanka wax walba. Loolanku wuxuu socday 20 sano ilaa laga soo gaaray jabkii iyo saaritaankii Maraykanka. Waxaana xigay furashadii Kaabul iyo soo laabashadii ay Taliban soo laabatay xukunka. dhammaan ciidanka booliska iyo Taliban baa الشرطة يا إلهي أفغانستان قابلي بلاو بشتون dhammaantiin ma Bushtaan baa tihiin? haa bushtaan ayaan nahay. waxaan ka soo jeedaa anigu qabiilka bushtaan, laakiin dhammaantiin waxaanu nahay walaalo. qabyaaladii meesha ayay ka baxday. marka hadda Taliban micnaheedu ma arday baa? معناها طلاب. haa waa ardaydii madrasada diiniga dhigan jirtay. arday miyaa tahay adigu? haa waxaan nahay arday. dhammaan iskoysidani waxay ku suntanaayeen magacyo abaanduulayaal, balse Taliban ayaa ka beddeshay oo u bixisay magacyadii saxaabada, taabiciyiinta iyo khulafaa uraashidiinta. waxaan joognaa meesha ugu sareysa Kaabul. halkan ayay ka taageen imaaradda Islaamiga. tafaashishan aad baan loo dhaacsanahay. ma aragtaan halkaas kubad ayaa ku taala. السلام عليكم ما شاء الله فلسطين ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كابول كابول أفغانستان نيو سيتي. digaag buu ii qayl rabaa. may wad macsan tahay. لا شكرا. wuxuu yidhi maadaama aad Afghanistan timid waa inaan ku gowracnaa. maya fadlan ha samaynin.
baleeg waa digaagad qof kalena laxin ii gowracayuu rabaa qof walba wuu casuumayaa waa dad aad u wanaagsan markii hore dadku sidan wadooyinka uguma socon jirin 2 sano ka hor ayaan halkan yimid habeenkii lama socon jirin بسم الله بس في تحس balse si lacay soo mareen indhahooda ayaad ka akhrisan kartaa waa kuwa caalamka ka soocan psychology history طالبان not طالبان history هاي tani waa hotel aan caawa ku hooyin doono 5 نجوم كبير الفندق كافيه اوكي شو waa bartamaha suuqa ma suuraysan kartid heerka ay gaareen waxay gaareen heer ay yeeshaan suuq lagu magacaabo suuqa mujaahidiinta waxay heerka sare ka gaareen nafurnimada النفس marka waxaad iibsan kartaa hubka aad rabto dabcan xukuumadda halkan ayay joogtaa waxaad kaloo halkan ka heli kartaa dariiska ciidanka Taliban waa dariiska rasmiga ah ee dalka waa suuqa hubka iyo meeshii lagu dayactiri lahaa waa kuwa diyaarsan kulligood way hubaysan yihiin ماليش مكان هون انا mar walba xaalad dagaal ayay ku jiraan balse sideebii xukuumadda Taliban ay ku awooday kadib 20 sano oo dagaal ah inay maareyso dalkan waqti ayay qaadan lahayd mid ayaa shalay igu yiri ma garanay waxaan sameeyo inaan dagaalamo oo jihaado mooyee waxay hayaan dhar wanaagsan eeg dharkani waa kii ilaalada gaarka ah waxay isku diyaarinayaan inay naftooda hormariyaan balse weli wax ayaa u dhiman sababtoo ah weli dal aqoonsaday ma lahan هذا كله جيش كلش نظامية على الصحيح نظام هي صورهم هون في كل مكان waxaan joognaa bartamaha magaalada shacabka Afghanistan waa kuwa wanaagsan markii hore axsaab siyaasadeed fara badan ayay ku dhex noolaayeen wayna kala qaybsanaayeen balse hadda farqiga u dhexeeya ayaa ah inay Taliban maamulayso ammaankana ay gacanta ku hayso waxay ku guuleysteen inay dadku si ammaan ah wadada ugu shaqayn karaan waxay sidoo kale ku guuleysteen inay kontaroolaan dal burbursan oo ku dhawaad 20 sano ku dhex jiray loolan صراع النفوذ السلام عليكم طلع هذا السوق الجوالات هون السلام عليكم arrimaha oo dhan maaha kuwa hagaagsan gaadiidkuna maahan kuwa habaysan inta badan baabuurtu ma lahan wax leesin ah waxay u baahan yihiin kaalmo caalami ah waa shacab la haybsoocay sida caadiga ahi maalinkii Afghanistan waa sidan cid walba oo gaari gacan wadada la istaagta wax degnina lama siinayo waa la karbaashayaa المخالفة بالكلام ما يصير نحن في كابول في بازار مندي هذا أكبر سوق في كابول aniga Sacuudiga ayaan ku dhashay Afghanistan 6 sano ka hor ayaan imid halkan ayaan ku noolaa kadib iyo koox xukun islaamiga ah ka hor nolosheenu halis ayay ku jirtay tuugo qaraxyo iyo burcad ayaan dhibi jiray balse kadib markay imaaraadku xukunka qabatay 80% arrimuhu way hagaageen 80% شيء عزمونا شيء عجيبة الدولة هي ايه روسيا دول And I want a message to all the world to come here, to visit here to Afghanistan.
waxaan ku jirnaa gudaha taangiga ay Sofiyeedku lahaayeen. sidaad aragtaanba waxaan ku sugannahay qalcadda lagu magacaabo Balhisaar. Eeg, waa taangigii Sofiyeedka. Halkan ayuu yaallaa. Halkan ayay dhigeen. Wejiga horena dhinaca Kaabul ayay u jeediyeen. Kaabul oo dhan halkan ayaad ka arki kartaa. Eeg calankaas. Maraykanku halkan ayay joogeen. Waxaad arki kartaa wixii ay ka tageen. Maraykanku iyo Sofiyeedku way tageen. Kii dhulka lahaana dalkiisii ayuu joogaa. halkani waxay ahayd meel qasri ahaana ayuu ahayd mataqaanaa cid walbo Afghanistan xukumaysay Tataarka ugu horeeyay sababtoo ah meeshan Kaabul oo dhan ayaa laga arki karaa dhammaan kuwii soo xukumay Afghanistan halkan ayay ka xukumayeen xitaa Tataarkii. sidan ayay u qaabaysan yihiin nolosha Afghanistan. waxaad bixin kartaa lacagta adigoo adeegsanaya kaararka caalamiga ah ee fiisaha iyo masarka sababtoo ah kuma yaalaan bangiyo caalami ah, waxaa ku yaala bangiyo maxalli ah. hadda waxaan u sii soconnaa goobta ay ku taallo buundada lagu magacaabo Pablo Escobar. ma suuraysan kartaa buundadan hoosteeda waxaa ku yaala hoolal. ma rumaysan kartaa gudaha hoolalkan dadku marka ay ku dhex geeriyoodaan dusha ayaa lis saari jiray. waa sida adigoo kartoon cabitaan ah isa saaraya. halkan ayaa laga furaa. waxay yiraahdeen buundadan hadda waxaa lagu magacaabaa buundadii farxadda. waxay halkan u adeegsan jireen inay ku iibiyaan daroogada noocyadeeda kala duwan. balse markii Daalibaan timid waxay burburiyeen gebi ahaanba beerihii khashkhashka ahaa. هذا واحد من حقول الخشخاش في منطقة زهاري. Afghanistan waxay beeran jirtay khashkhashka in ka badan inta ay beertaan Laatiin Amerikaanku. waa in ka badan kookinta laga beero dalka Laatiin Amerikaanka ee Colombia iyo Peru. waxay ahayd soo saaraha xashiishka ugu badan caalamka. hadda waxaan joognaa dukaankan ku dhegan buundada kuna yaala buundada korkeeda. ninkani in badan ayuu halkan joogay. wuxuu yidhi 2 sano ka hor halkan waa laga baqi jiray. habeenkii lama awoodin in halkan lagu socdo shirka daroogada iyo dhibka ay geysanayso awgeed. xalaqada labaad waxaan isku dultaagi doonaa inaan ogaano halka ay ku qarsoomeen dumarkii Afghanistan iyo sababta aysan u jirin dugsiyo ay dhigtaan. waxaan aadi doonaa dugsiga laga qalin jebinayo oo ay Daalibaan leedahay. si aad ugu biirto Daalibaan waa inaad ka qalin jebisaa dugsigan. waxaan sidoo kale geli doonaa qasriyadooda lana kulmi doonaa shakhsiyaadka ugu saameynta badan uguna muhiimsan